السلام عليكم دمان كل شوين تميل والبوء جوتان إن وحن ربينا وحير إذا كبهو عذرك كورونا يصيد الصومالي ده أي وليبو من سنين أما قال كلبا أي كسر قاضي الحرب نبهانتي إذا عاده ما أنت BBC وحن كنت بني إن ضلك إكوادور مارلو لأي عقاب كمية كلو آسنا سداد بقول أفرتن يتطبقفنا أي ساعده للصوت في دلك UK وكيريودين حنونك كورونا ساعد والبوحان تبينا إن بقلال قف ودن كيبا كيريونا يعني سبب لحريرتا كورونا سوماليا أما الصومالي ده ميل والبو أي جوغانا ولي وحا لغا كيري لأيها ولغا دادعين لأيها إنay raacaan talooyinka caafimaadka ay soo jeedinayaan goobaha ay joogaan wasaaradaha caafimaadka ama saraakiisha caafimaadka ee jooga waxaa idin dhihi lahaa Soomaaliyeey haddii si loo eego bulshada ugu xanuunada badan ayaa ka mid yihiin dhiigkar ha dhihin sokor ha dhihin wadna xanuun ha dhihin kolestarool ha dhihin keliya xanuun ha dhihin xanuuno badan dadka Soomaaliyeed la dala dhacayaan cagaarshow waxyaabo badan ay dadka qabaan marka si naftaada aad u badbaadiso bulshada kalena aad u badbaadiso horta hadaysan daruuri ahayn inaad guriga ka soo baxdo haba ka soo bixin midda ugu horeyso islii iyo meelo badan oo Soomaalida ay joogaan UK Sweden waxa laga kari laayahay war gurigaaga joog hadii aan daruuri ahayn soo bixitaankaaga hadii aysan daruuri ahayn waa ognahay inteena badan Soomaalida shaqooyin ma hayaan dadka waaweyn ayelada dhalinyarada dadka teenage-ka ah kuwaas oo dhan shaqooyin ma hayaan haddana banaanka kama maarmayaan oo way tagtaagan waxaan ku dhihi lahaa adiga hadda xanuunka u adkaysan karto ama uu ilaahay kuu qoray inaad ka gudubto ha u geenin odaga sokorta qaba ha u geenin odaga dhiigkarka qaba ha u geenin odaga cagaarshowga qaba ha u geenin qofka neefta qaba ama TB-da qaba ha u geenin maxaa yeelay haddaad qofkaas cudurka qaadsiiso si sahlan ayuu ku geeriyoon karaa marka waxa ugu weyn ee aan ka codsanayo waxa waaye in aad dadaashaan social distancing aad fahamtaan maskarada aad xirataan nadaafadda aad ku dadaashaan tan ugu muhiimsanna ah inaad guryaha joogto